bank ahaan waxaan aaminsanahay in maalgelin kasta oo caafimaadka loo sameeyo ay tahay maalgelin lagu sameeyo nolosha dadka. Observations aanu sameynay ama qof kastoo akhriya xogaha ka soo baxaya caafimaadka ama wasaaradda caafimaadka ha noqdeen ama institutions ka khuseeya 2025kii 5.4 milyan oo Soomaali ah ayaa u baahday caafimaad. waxaan ka warhaynaa isla sanadkaas barnaamijkan Health Response Plan waxay dalbadeen lacag 123 milyan, less than 30% bay heleen fankii. isla sanadkaas 300 oo xarumood caafimaad baa la xiray waddanka. dhinaca kale structural gap baa jira meesha adduunka 10kii qof ay ku soo beegmaan 23 qof oo health professionals ah, dhakhaatiir iyo nurse iyo midwifery. Soomaaliya waxaan ka hadlaynaa 3 ilaa 4 qof inay ku soo beegmaan. caafimaadku waa asaaska nolosha, horumarka iyo mustaqbalka bulsho kasta. Soomaaliya adeegyada caafimaadku waxay soo mareen marxalado kala duwan, waqtiyo horumar, duruufo adag iyo dadaalo joogto ah oo loogu jiray dib u dhis iyo casriyeyn. nasiib darro burburkii dowladda dhexe 90-koodii kadib runtii waxaa meesha ka baxay dakhligii ama dhaqaalihii dowladda dhexe ay siin jirtay, waxaana bilaabmay in si ku meel gaar dhaqaatiirta iskooda isku xilsaaraan. 90-koodiina magaalada Muqdisho laga sameeyey guddiga isku dhafka ee caafimaadka oo ahaa dhaqaatiir iskooda isku xilsaaray, kana howlgeliyey isbitaaladii waaweynaa sida Digfaar, Banaadir iyo Madiino iyo isbitaal cusub markaa la dhisay oo Keysanay. shaqada ugu weyn ay qaban jireen ay ahayd badbaadinta nafta. marka qalab muhiim ah laga waayo gudaha dalka, bukaanada qaarkood waxay ku qasbanaan karaan inay adeeg caafimaad u raadsadaan dibadda, taas oo qoysaska ku keenta kharash, waqti iyo culays dheeraada. waxaa jirtay waagii xagga ardaynimada aan u joognay in culays badan oo ka jiray dadka caafimaadka u imaanaya dalka Hindiya, hab u kala badnaadaan sektarada ay ka imaanayaan oo waxaa la yiraahdaa dhanka kansarka, dhanka waxaa la yiraahdaa arrimaha la xiriira dhalmo la'aanta iyo culaysaadka. baaritaanno markii hore laga heli jiray meelo kooban ayaa gudaha dalka laga heli karaa. waqtiga sugitaanku waa yaraadaa, awoodda dhakhaatiirtuna way korodhaa, bukaankuna waxa uu helaa adeeg u dhow oo lagu kalsoonaan karo. Biochemistry analyzer oo full automation ah wuxuuna noo qabtaa dhammaan shaqooyinka biochemistry-ga, ha ahaato free liver function test, ha ahaato kidney function test, ha ahaato some oo ka mid sida CRB oo kaleeto. sidoo kaleeto wuxuu noo qabanaa HbA1c-ga, sidoo kaleeto wuxuu sameynaa ASO-ga iyo waxyaabo badan oo la xiriiraan oo chemistry-ga. hal qalab oo la maalgeliyo waxa uu taaban karaa nolosha kumanaan qof. hal isbitaal oo awoodiisa la kobciyana waxa uu adeeg u noqon karaa bulshadan. hal isbitaal oo la maalgeliyo waxay ka dhigan tahay in kumanaan qof loo soo dhaweeyo adeeg caafimaad oo tayo leh, sidoo kalena loo badbaadiyo waqti, kharash iyo safar ay dibadda ugu raadsan lahaayeen adeeggaas inay helaan. sidaa darteed mashiinadaas waa mashiino aad waaweyn oo samayn kara saacaddii soo saari kara in 120, 140, 250 bukaan halkii mar jawaabtooda soo bixi karta. marka wax weyn ayay ka bedeleen. Sombank waxay aaminsan tahay in bangigu uusan ahayn oo keliya meel lacag lagu kaydiyo, balse uu yahay bahwadaag ka qayb qaata horumarinta bulshada. marka Sombank ahaan waxaan aaminsanahay in maalgelin kasta oo caafimaadka maaragtay loo sameeyo ay tahay maalgelin lagu sameeyo nolosha dadka iyo mustaqbalka Soomaaliya. ujeedkeena waa inaan dhisno oo iskaashi waara oo u dhaxeeyo bangiga iyo isbitaalada, dhakhaatiirta iyo sidoo kale shirkadaha qalabka bixiya si adeeg caafimaad oo tayo leh la heli karo, waarana in la gaarsiiyo bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto. cudurro badan hadda dibadda loo aadi jiray ayaa maanta suuragal ah in waddankeena lagu daaweeyo. nasiib wanaaggan uga aad iyo aad uga hambalyeynaya bahda caafimaadka oo anigana aan ka tirsanahay oo runtii dadaal badan geliyey, qalab badan 10 sano ka hor qaliimada sida wadnahoo kale ama keliya dhaqista oo kale waddankeena kama jirin. maantana xarumo badan
Prime Care iyo Star Health waxay ka mid yihiin bahwadaagta Sombank ee fududeynaya helitaanka qalab caafimaad oo ku habboon baahida xarunta caafimaadka. Star Healthcare iyo bangiga Sombank runtii waxay collaboration fiican ka sameeyeen inay u fududeeyaan macaamiishooda iyo isbitaalada ay la shaqeeyaan intaba inay u keenaan healthcare financing sahlaysa in isbitaalada iyo healthcare institutionska ay helaan qalab tayo leh waqti yarna ay ku helaan. Sombank loyalty ee u leedahay dadka iyo dhimrinta dadka ee u leedahay yaa waxaan u sameynay inaan dhahno war Sombank yaa maanta idinku ku roon oona anagana la macaamilta mashiinadeennana yaqaano yaan idinka support gareyn karnaa bal Sombank inta u tagtaan anagana ayad ka noqona garab oo idin siin recommendation inuu qofkan customer la yaqaano yahay waxaan uu gadan karo lacagtan uu iska bixin karo anaka recommendation ayad ka bixino bankiga u taga Sombank. xarumaha taageera carruurta qaba autism-ka iyo qoysaskoodu waxa ay qabtaan shaqo muhiim ah oo u baahan aqoon agab iyo garab istaag joogto ah. waxyaabaha hadda challenges-ka ah oo dhibaatooyinka ka jira waxaa ka mid ah adeegyada aan bixino oo yar xaruntan waa xaruntii ugu horeysay oo ilmaha loogu shaqeeyo. mashaakisha kale oo jira waxaa ka mid ah qalabka lagu shaqeynayo oo aan wadankii laga heleynin, dhaqaalaha dadka oo aan qayb ka mid ah u saamaxaynin in ay maaragtay service-ka helaan oo yimaadaan. challenges-yada kale waxaa ka mid ah wacyiga bulshada oo weli aan si fiican ugu baraarugsanayn ahmiyadda ay leedahay in qofka uu rehabilitation helo oo uusan laga badbaadiyo inuu naafanimo waarta uu ku noolaado noloshiisa oo dhan uu noqdo qof productive ah oo isaguna wax qabsan kara bulshadana wax ku soo kordhin kara. taageerada xarumahan waa maalgelin lagu samaynayo horumarka carruurta, awoodda qoysaska iyo bulshada oo aan cidna laga tegin. waxaan uga mahadcelinaynaa Sombank oo ka mid ah partnerska ama dadka sida wanaagsan noo caawiyay run ahaantii aad noola shaqeeyay oo na caawiyay inay xitaa sponsor noogu sameeyaan ilmaha qaar ay iyagu kafaalo qaadaan oo bixiyaan qarashka ku baxayay. aad uga mahadcelinaynaa. waxaa sidoo kale muhiim ah in la abuuro xalal maaliyadeed oo awood u siinaya xarumaha caafimaadka inay horumaraan iyadoo adeeggu uusan ka fogeyn bulshada. Sombank waxay diyaar u tahay inay sii wado maalgelinta caafimaadka, isku xirka hay'adaha caafimaadka, maalgashadayaasha, shirkadaha qalabka, dawladda iyo bahwadaagta horumarinta. maalgelinta caafimaadka oo la kordhiyo waxaa ka dhalanaya dad caafimaad qabo. dadka caafimaad qabana waxaa ka dhalanaya shaqaale wax soo saar leh. shaqaale wax soo saar lehna waxay keenaysaa dhaqaalihii oo kobca. soo marka caafimaadka in la maalgeliyo waa dhaqaalihii oo kobca. Sombank gudoomiyahooda hadda ag fadhina wuxuu sheegayay warqad uu tusay in 30 milyan ka badan hadda inay ku maalgeliyeen caafimaad, isbitaallo badan iyo xarumo caafimaad badan, beneficiaries 2 milyan ka badan iyo number aad u dhiirigelinaya ayuu sheegay. haddana inay sii wadaan yoolkaas oo ku bogaadinaya iyo maaragtay in caafimaadka ay u arkeen fursad in la maalgeliyo mudan ay u arkeen waa ku bogaadinaya waan ugu mahadcelinayaa. waxaa aad iyo aad noo soo jiidatay annagoo muddo kooban Sombank la shaqeynayna isla markaana ah bankiga aan isticmaalno isla markaana aan ku bixino adeegyada ama mushaaraadka shaqaalaha in bankigu uu naga caawiyo xilligaas inaan helno maalgelin si aan horumarino adeegeena. maantana isbitaalka Samakaal heerka oo marayo bulshada Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed ay wada ogsoon yihiin bankiga Sombankina uu ku mahadsan yahay inuu naga caawiyay waxyaabihii wanaagsanaa ee bulshada aan u soo qabanay annaguna aan kula tacaamulnay tacaamul wanaagsan. sida arkaysiin mashiinadan casriga ah ayaa noo keenay oo automation-ka sida mashiinka biochemistry-ga mashiinka toosaha sidoo kale mashiinka CBC coagulation dhammaantoodna waa mashiin automation ah European standard ah aad iyo aad tayada u sareyso resultkoodana aad loo kalsoon yahay. walaa runtii mar kastoo la helo agab ku filan adeeg bukaanka la siinayo
agabkaas oo maalgelin u baahan waa mar kastoo bukaankii uu helo natiijo fiican. tusaale haddii qalabka u dambeeya la keeno oo shaybaarka ama raajada ama saalada ama gargaarka degdega ama dhalmada haddii la keeno khidmada u dambeeya qofka helaya waa qofka bukaanka in la helo dawo tayo leh waxaas oo dhan in la maalgeliyo runtii waddankan wuxuu u baahan yahay waa wax uu u baahan yahay isbitaalka aan matalayo Erdogan Hospitalna runtii wuxuu u yahay tusaale fiican dadka adeeg bixinta macnaha maxalli marka laga hadlayo annaga bishii macnaha celcelisaan 40,000 oo bukaan ku dhawaad ayaan u adeegnaa runtii waa tiro aad u tiro badan isbitaalka marka la furayo waxa xusuus mudan in macnaha bishii 6,000 oo ku bilaaway maantana la marayo 40,000 oo bukaan in hal mar bishii loo adeego. Sombank waxay maalgelinaysaa caafimaadka una adeegaysaa mustaqbalka bulshada Soomaaliyeed si loo gaaro yoolkaas loona helo bulsho caafimaad qabta oo horumarsan. doorka Sombank kuma eka bixinta maalgelin oo kaliya waxaan isbitaalada kala shaqeynaa sidii ay u heli lahaayeen qalab caafimaad oo casri ah sidoo kalena ay u balaarin lahaayeen adeegyadooda una kordhin lahaayeen awoodda ay bukaanada ay ku qaabilayaan because markii isbitaalka uu helo maalgelin ku filan waxaa kordhaya dabcan adeegiisa uu siinayay bulshada waxaana dhici karta inuu u adeego ka badan intii marka hore uu adeegi jiray. waxaan aragnaa dad la yiraahdo kaliya loo dhaqaa end stage of renal disease oo gaaray transplant oo kale waddanka hal meel lagu sameeyo male isbitaal kaliya isku dhiiran karan male marka fursadaha noocaas oo kale iyo oncology oo hadartan wuxuu nagu hayaa dhibaatada ay nagu hayso maartay kansarka iyo dhibaatada nagu hayo qof walba uu ogyahay isbitaalka Horyaal oo kale ilaa xad waxbaan maartay la tacaalnaa oo maartay qosaydo si loo daaweeyo loo baaro kansarka laakiin ma hayno waxa Soomaalida u taqaan shucaa radiotherapy wax kaliya isbitaalka kaliya kuma filno waxa wax system loogu talagalay ama dawlad ama bangi ka caawinaya marka fursad waxa weey anaga waxaan arkaynaa fursad habeen soo martaan arkaynaa hadaan bahda caafimaad wax aad u mudan in loo bogaadiyo waaye wax aad u wanaagsan waaye waxaan rajeynayaa insha Allah in la sii horumarinayo ujeedada iyo ahdaafta loo furay isbitaalkan waxa qayb ka ah in looga maarmo adeegyo badan oo caafimaad oo dibadda loo aadi jiray waxa hadda socdo oo si joogto ah u sameeyna qaliinada wadnaha oo furan oo si joogto ah isbitaalka ugu socdo waxa dhaqaatiirtoodii dirnay neerskoodana dirnay iyo farmashiistayaashii oo dalka Turkiga ku maqan 3 bilood ugu dambeysay gabagabadana ku jiro waxbarashada dhaqaatiirtii iyo tiimka shaqeey lahaa qaybta kansarka xarunta kansarka shaqeey doono oo qaliin iyo daaweyn labadaba ah runtiina waxaan rajeynayaa insha Allah taala bukaano badan oo Soomaaliyeed dibadda u aadi jiray kansar in sidoo kale waxaan qorsheynaynaa du'aaleed inaan keeno adeegyo iyo qalabyo caafimaad waan rajeynayaa Soomaaliya Sombank inay ka qayb qaadan doonto maalgelinta adeegyadaas iyo howlahaas. Sombank Bank for